أهلا وسهلا صاحب يال أدبان إذن سلامي maanta waxaanu ku sugannahay bariga Hargeysa ayaan joognaa gaar ahaan waxaanu ku sii jeednaa runtii caan dhalaya oo dadku aad wada garanayaan baan doonaa maanta inaan ku soo dul damaashaadno idinkana aan idiin soo tabino waa buurta la magac baxday markaa Naasa Hablood baynu doonaynaa inaynu ka war doono maanta oo aan muuqaalkeeda quruxdeeda iyo sida ay u dhisan tahay iyo u samaysan tahay inaan la wadaagno iyo waliba waxyaabaha kale ee quruxda badan leh ku tahaaran ama ku hareeraysan marka nala socdo insha Allah aad baynu isu raaci doonaa muuqaalkaas aan ka dib geyn doonaa xanaasadiisa wata ina marsha insha Allah war ina marshade وي أحمد saaxiibaad baan ku salaamay adiga iyo kameramaankayga qaaliga ah عادي inta kadib aad baan u salaamayaa dhammaan akhyaartayna ku taxan waliba channelkayga Axmed Daawud channel ما شاء الله hadda safarkeeni baan wali ku jirnaa عادي aan idiin soo sheegnay waxaanu saaranahay mid kamid ah buuraha magaalada Hargeysa ku hareeraysan صح oo aanu jecelahay inaan uga sii gudubno buurta qaaliga ah ee aynu wada naqaano ee waliba loogada magaaladeena Hargeysa ah صح ee loo yaqaan markaa buurtii Naasa Hablood dawladda hoose markaa oo calaamadda u ah صح buurtaas baan idin dul geyn doonaa in badan waad soo daawan doontaan insha Allah haddana buuraha kamid ah joognaa oo meeliyadu lafteeda aad u qurux badan halkan guriyaha iga dambeeya sidoo kale ay degan yihiin oo marka halka ay magaalada ka daawadaan sidoo kale ay ka leeysadaan waxaanu leenahay dadku hadii dhulkooda dhisayaan buurna ma soo celiso صح biyana ma soo celiyaan oo meel biyalana waa la dhaafaya meel buurana waa la tagay waa la dhaafi karaa صح kana calaamadina oo deeno cadeynaysa marka safarkeeni baynu sii wadan doonaa saaxiibayaal ilaa intaynu ka gaarina buurtii qiimaha lahayd aan fanan doono oo aan dusheeda idiin soo duubi doono intaanu dhexda ku sii jirnay waxaanu maasha Allah kula kulannay xayawaano kala duwan oo runtii iyaguna halkan ku nool sida doofaarro kala duwan oo waliba aad u fara badan oo kayntan ku nool Naasa Hablood agteeda sidoo kale daanyeero raxan u socda oo aad u fara badan ba iyaguna sidoo kale ku nool maasha Allah waa dhul marka xayawaanaadkii kala duwanaana laga helo sidoo kale buurta iyo hareeraheedana ay aad ugu nool yihiin dusheedana hadda waxaan si toos ah u guda galeynaa oo aan si toos ah u bilaabayaa safarkeennii buur fanashada inaynu buurta fanano xagga ugu sarreyso uga baxno aynu soo daawano bal dusheeda iyo muuqaalka view-ga ay bixinaysa marka kor looga baxay kor laga soo duubo hareeraha magaalada Hargeysa iyo iftiinkeeda marka insha Allah nala socda daal iyo haraad bayna sugaya biyo la'aan weey saaxiibayaal soo raaco ina mar maanta taayiradan ku qabsanaynaa buurtoodii marka uma joojinayo waa sii soconaya si asxaabteedu arkeen view-ga iyo quruxda marka xagga sare uga baxdo buurta Naasa Hablood marka ila socdo insha Allah saaxiibayaal ma geed cusku ilaa laan la cuskadaana waadan haddii aad meel dhagax la soo fuusho oo buur dhagaxaana meel la cuskadaana waadan dee dhagax cuskay noqonaysa dhagaxina waa kugu go'ayaa in dib u dhacdo ayada yar u jirsanaysa dhididkayga dhacay waa aragtaan waxaan buurta inta lagu fuulayaa inaan view-ga Hargeysa iyo hareeraheeda aan si fiican idinku soo gudbino si fiican u daawataan ku qanacdaan insha Allah dadaalkan idin sameynayno iyo rafaadkan idin marayno insha Allah maadaama tihiin idinkuba asxaabi ku qaaliya oo view garaysa insha Allah hadda waraabu ii tusaya saaxiibkeen bal la daawo saaxiibkay xaraga wuxuu arkay waraabe marka waraabahaasaynu insha Allah ka war dooni doonaa oo dabadaydu maraya xagga dhulka marka xaraga ay dhaafayba inta wax duuduubaynay buu dhaafay marka wali haraadkii iyo daalkii iyo kufkufkii wuu noo socdaa hayaay hadda meel halis la soo gaaray yaa ku fanaan hadda wada waraabihi daayarka cidoodii ayaad maqlaysaan haddaan idinku qabto hadda waa soo gaadhay goobtii daayarada badankoodii kun daayeer bay ka badeen kun daayeer bal kun daayeer iyo laba shakhsi waa midkii waxaan isku daynaa buurta ku qabsano maanta oo aynu ugu fuuloon fanano
كان لا صعد صاحب يال dhinac bay isku ururiyeen daayaradii anagana dhinac baan buurtii hadda ka joognaa waxba fikti igama harsana wadinka arkaya in yar baan fikti u jira insha Allah hadda saaxiibkay baa horgalay oo iska baaraya in yar oo calooladayga aan eegna markii halkay ku dambayso ila socdo insha Allah meel aad u adag baan hadda koreynaa waayo meel bay ka sii culustay waa dhagax yar oo ku siibta dhinac waan is ilaalinaynaa geed qarmuun baan taabtay waa dhacay runtii laakiin waa isqabtay alxamdulilah fikti maxaa nooga harsan haddaba marka dambe ciddii degi lahayd waayo markaad degaysa waad sii ordaysa fiyuga daawada asxaabay maasha allah xaragalka wakad ka daba tagan dhaafayso la socda buurta marka magaalada la joogo dadku waxay u haystaan inay yartay laakiin markuu qofku soo gaadho ee uu fanto ayaa wuxuu arkaya xaqiiqadeeda meelaan la kori karin bay soo gaadhay wada dhir wada tiin iyo garanwaa waa ugu talagalay rafaadkayga inaad maanta asxaabadan ay ku raaxaystaan ay daawadaan صاحب سادو jeedaba ha jimicsigan way dhaaftay buur fikteed baa la marayaa meeshan ninka soo gaadhnay waaba masallihi ama fiktii ama gurigii caafaadka ugu weyn daayarada bal waan inta tusayay la sugan runtii cabsi badan baa ka sugaysay inaan dushan soo fuulo laakiin markaan cabsi walba u bareernay ee aan runtii ku soconay ee aanan dhididka eegin ee aanan rafaadka eegin ee aanan cabsida eegin waxa aan soo gaarnay guntiga gabagabadii oo inaan fikti ugu sareysay lafta ama boortan aan soo farno wali wax yar baa hadhay oo wali aad culus soo duceeyay intaan inaan ku guuleysto orod badan kadib waa godku galay way idinka arkaya hadaan dib eegno anaga ba ka naxaynaba saaxiibkay fikti u gaadhay anaa ka daba tago neecawda udgoona ka dhacaysa neecawda freshka ka dhacaysa kaaga daran waayo waa fikti ugu sarreysay buurta waan hadda cagaar soo dhignay waa dareemi karaysaa waan arkaysaa dhididka iga dhacaya waxaan soo heehaabno ee aan kolba dhagax soo cuskanno ee aan kolba geed meel aan geed ahayn oo dee xaramad yar aanu cuskanno oo noo fuuqi gaadho guntiga gabagabadii waxaanu soo gaarnay dhakadii sare fiktii sare buurta naasa hablood waxaan jecelahay inaan dib laydinka sheekayn fiktii sare naasa hablood maadaama anigu joogo maanta oo aan soo gudbinayo ummadayda soomaaliyeed waa meel fiyugeedu aad u badan yahay xayawaanaadkuna ay gar u leeyihiin inay dadka soo badbadan waayo waxaad soo dagaaltamaysaa oo wareeraysa inay marka qaar soo fuusha way adkaanaysa qofka tegay baa soo fuulaya marka sidaa darteed bay ku noqotay hooygii ay bulshada iyo dadka kaga gaban lahaayeen xayawaanaadka sida daanyeerka oo kale iyo dacwooyinku hareeraha iyaguna ku nool dabcan bal haddaba isoo yar raaca oo aan dusheeda duubno oo nala arka insha Allah fiyugeeda xagga sare kadibna bal hareeraheeda iyo miyada ku hareeraysa qaybtan bariga iyo qaybtan galbeedka Hargeysa ay ka xigto jagooyinkii iyo dhammaan si qurux badan loo wada arki karayo jagooyinka la calaamadsaday iyo wixii oo dhan waayo maalin dhow halkan deegaan bay noqonaysaa magaalo maalin dhow waxay noqonaysaa magaalo la degan yahay laakiin maanta waa ban cidlaa adiga iyo xayawaanka ayuunbaa ku saaxiibay bal namash waxaa kaloo caan ku tahay buurta naasa hablood in laga fidiyey ama laga sheego warar kala duwan wararkaasoo qaarkood naxdin badan ay leeyihiin
oo lagu odhanayo shayaadiin baa degan, jin iyo insi baa ku wada nool, hablaha inta badan iyo ragga dhaca hal iyo jeer xaggaasay u ordaan oo halkaasaa laga soo helaa. waa meel markaa cabsi badan ay ku gelayso adigii dadka ku dhiirada ay yaryihiin ee iman karaaba, oo qof walba naftiisu uu cabsadaayo. way adag tahay in lagu soo dhiirado quruxdeeda iyo dusheeda iyo sawirro in lagu galaa way adag tahay. laakiin maanta annagu waxaa tijaabinaynaa bal waxaas inay wax ka jiraan iyo inaanay waxba ka jirin, waxaana indheheenu inoo qeexayaan oo hadda idinkuba aad daawan karaysaan fiktii sare buurta Naasa Hablood aynu hadda inagu ku naaloonayno oo aynu ku dul soconno oo aynu viewgeeda iyo quruxdeeda sawirra aynu ku galayno. sidoo kale aynu videogan ka duubi doono insha Allah ilaa iyo laga gaarayo 7 fiidnimo halkan baan ku sugnaan doonaa insha Allah. marka waxaan rajeynayaa dhalinyarada Hargeysa inay waqti ku wada qaadan doonaan oo ay usoo tamashla tegi doonaan oo runtii dadka jimicsiga iyo sameynaya magaranaysa orodka sameynayaana ay buurtan orodna ku kori doonaan, orodna kaga soo degi doonaan si ay uga helaan dabcan deganaanshiyo fara badan iyo magaranaysa qurux fara badan iyo inay miisaanka iskaga yareeyaan. sidoo kale xilliyada galabtii oo kale waa meel in sawirro lagu galo oo lagu damaashaado oo runtii waqti lagu wada dul qaato aad ugu habboon, waayo hareeraheeda oo dhan waxaa ka xiga dhul aad u greyna oo aad u qurux badan. wadadii weyneed ee 200 kilomitira ayaa sidoo kale ag maraysa oo garab maraysa oo iyaduna magaaleysayba Naasa Hablood agteeda. marka waxaan idin leeyahay wixii laga sheegay kolley wuxuun baa ka jira, laakiin annagu waxba kumaanan arag aan ka ahayn xayawaanaadka kala duwan ee runtii dee laga cabsanayo iyo weliba meelahaas biyuhu ay kala nooca yihiin, qaybna casaanka tahay qaybna ay biyihii saafiga nadiifta ay tahay oo aynaan garanayn waxa casiyay qaybta ka mid a. sidoo kale waan rajeynayaa inay meelo u dhow yihiin had iyo jeer berigii hore lagu daadin jiray gudaafada oo kale, laakiin hadda nadiif bay u badan tahay. labada naasood ama labada magaranaysa buurood mid ka mid a ayaan hadda anagu saarannahay oo barnaamijkan aan idinka soo tabinaynaa quruxda iyo qaayaha leh ee waqtiga nagu qaatay inaan fikta sare buurta gaadhno. tii kalena wataa inoo muuqata oo dabcan iyada lafteedu inagama durugsano inagama foga, waynu arki karaynaa, laakiin iyadana in la fuulo la tagaa waqti kale ayay qaadanaysaa oo halkaas ayuun baanu idinka tusaynaa viewgeeda iyo quruxdeeda. alxamdulilah waa mahadsantihiin. waxaa barnaamijkan markaa aan usoo tabinay si ay u noqoto buurta Naasa Hablood meel aad ka bogataan hareeraheeda qaybo ka mid a beeraha ku yaala, qaybo ka mid a waa dhul aya oo cidla ah oo xayawaanku keliya ay galaan, qaybo ka mid a dhagaxa laga jabiyaa oo magaalada dhagaxa la geeyo ayaa laga qaadaa, qaybo ka mid a wadadiiba ag marta, qaybo ka mid a sidaan idiin sheegayno dad reer miyi ayaa degan. waa meel runtii ku habboon inaad jawiga kusoo bedelato oo aad jawi qurux badan kusoo qaadato maalmahaaga fasaxa. insha Allah waxaan rajeynayaa videogan kadib inay noqon doonto buuraha Naasa Hablood meel loo dalxiis tago oo runtii hadhow dowladuna ay hagaajin doonto, shacibkuna ay waqti kusoo wada qaadan doonaan. aad baad mahadsantihiin. nala daawada quruxda iyo viewga iyo weliba habeenkaas iyo maalintaas aan waqtiga qiimaha leh aan ku wada qaadanay aniga iyo saaxiibkii Xarago oo runtii markaa ujeedada ugu weyn aan ka lahayn inaan buurtan soo fuulo oo aan viewgeeda idiin duubno oo neecawda ka dhacaysa aan idila wadaagno, quruxda hareeraheeda aan idiin soo duubno. ujeedada ugu weyn ee ka dambeysay waxay ahayd in dhulkeena quruxdiisa marka hore aynu meel isla saarno oo aynu isla garanno quruxda deegaankeena iyo dhulkeena, kadibna aynu uga diga rogano meeshii kale markaa kolba iyadana qurux aynu ku tuhmayno si aynu bulshada ugu soo bandhigno. waad mahadsantihiin. intaas ayaan kusoo gabagabaynaa videogeenii maanta aan ugu talagalay Naasa Hablood iyo quruxdeeda. markaanu kasii degaynana waa 5:15 galabnimo, viewga iyo quruxdeedana waad daawan karaysaan 5:15 galabnimo, waa 6 wax yar dhiman. maasha Allah sawirada lagu galaa sawirro cajiib ayay noqon doonaan oo xasuus mudan oo aad mustaqbalka oo dhan runtii xasuusan doonto maalinta aad halkaa tagteed sawirro kusoo gasho. waa maalin runtii qiimaheeda leh oo inagana xasuus inaga mudan, waayo waa meel jawigeedu aad u macaan yahay saan horeba idinku sheegnay. galab aad u qurux badan bay ahayd, waqti fiican aanu kusoo wada qaadanay. waxaanu idin leenahay bal aynu kasii daadega buurta aynu kasii daadegaynana nala socda, waayo rafaad badan baana sugaya, rafaad badanna horaan soo Xarago bestiya oo jiir adag iyo buur adag aan ka soo saaray halka ka dhacaya aniga la soo daba ordaya saaxiibayaal haddaad arkaysaan meesha
warka yaala waxa neeftuur ka dhacaya saaxiibka xargiya anigaba هو كان عايز صاحبي aniga wax duubeen maxaad malaynaysaa saaxiibayaal championship waxaanu ka soo degnay buur haddii saa loo eego dheerideeda bal dib waxaan u milicsano acuudu minak asahablood hadda gaadhigii waa naga qarsoomay halkaas yaalla waana kusii socono aad baad mahadsantiin saaxiibayaal waan idin jecelahay mar walba idinka ayaanu u noolahay inaanu idin raali gelino oo aad muuqaal xiisa leh xasan xamaasad leh mar walba aad nooga daawataan barteenan Axmed Daawud channel ku taxnaada inoo like gareeya share gareeya insha Allah dadka inaga xusubna subscribe tii inaga ilaawo maayaan mar walba qaali baad igu tihiin aad baad mahadsantiin